maanta waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay dalka ka joogto waxaana ay dhamaantood u dabaaldegeen maalinta qiimaha badan ee koowaad ee munaasabadda Ciidul Fitriga oo maanta si weyn guud ahaanba looga ciiday gudaha dalka iyo dibaddiisa. wasiirka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeedna ayaa maanta oo kale waxa ay ugu hambalyeeyeen shacabka Soomaaliyeed dareenka farxadeed ee hambalyada ciidda. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahim Sate oo la hadlay warbaahinta ayaa si kooban ula wadaagay dareenka hambalyada ee maalinta munaasabadda Ciidul Fitriga oo maanta ku beegan shacabka Soomaaliyeed waxaana uu Alle uga baryay sanadkan kiisa xiga in Ilaahay nabad iyo badqab iyo sidoo kale horumar la taaban karo uu shacabka Soomaaliyeed iyo dalkuba uu hiigsado. waxa uu sheegay in aanu soo marnay bil cibaado iyo sidoo kale hawlo kala gidisan aanu sameynay waxaana uu yiri maanta waxa ay ka mid tahay maalmaha munaasabadda ciidda ee Islaamka waxaan ka faa'iideysanayaa fursadan waxaan hambalyo u dirayaa shacabka Soomaaliyeed in aanu isla wadaagno si niyad sami iyo badqab iyo walaalnimo ay ku jirto maalinta farxadeed munaasabadda ciidda. hambalyada maanta ayaan la wadaagayaa shacabka Soomaaliyeed. maamulka Koonfur Galbeed waxa uu si gaar ah ugu hambalyeynayaa shacabka ay maamulaan ama ay hoos tagaan deegaanada maamulkaas si guud ahaaneedna ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dalka ka joogto. Bismillahir Rahmanir Rahiim. ciid wanaagsan waxaan marka hore u hambalyeynayaa idaacadda telefishinka Som News TV shaqaalaheeda iyo maamulkeeda hawsha agar laanta ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan barnaamijkan isaga fursadan oo nasiyayna aadaan ugu mahadnaqaynaa. intaas kadib waxaan u hambaleynayaa anigoo ku hadlaya magaca saaxiibadeeda halkaan wada fadhina iyo inta kale oo maartay naga maqanba waxaan u hambaleynayaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan shacabka muslimiinta guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku dhaqan waxaan ugu hambaleynayaa munaasabadan ciidda aan joogno darteed bishii Ramadaan ay soo qaateen oo 29 maalmood ay soo soomeen waxaan leeyahay ajar iyo ahsanaad dhameystiran Allah idinka siiyo. si guud ah dhamaanteen waxaan Ilaahay ka barinaynaa inuu soonkeena salaadeena aqbalo. shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inay ku gaaraan bashbashi barwaaqo annagoo maaragtay dhammaan dhibaatooyinka hadda aan dareemayno deegaanka ka jira ay dhamaadeen. dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliyana ay hormuud ka tahay sanadkan sanadkiisa annagoo saan oo caafimaad qabna annagoo wada jira annagoo isu hilow qabna annagoo barwaaqo ku nool. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. madaxda qaranka iyo sidoo kale madaxda maamulada dalka ayaa si isku mid ah u muujiyay niyad sami iyo horumar in la gaarayo sanadkan kiisa xiga haddii aynu sii wadno horumarka ay shacabka iyo ummaduba ay hiigsanayso. Idruus Maxamuud Iimaan TV-ga caalamiga ee Somali News magaalada Muqdisho.